بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داود waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ugu dashanaad oo toddobaadkii xiliyadan oo kala daawataan barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya marxalad aankee ah ay maraysaa waxaan ka eegi doonaa dowladaha dariska ah khaliijka iyo waliba tan ururada caalamiga ah sida United Nations ama qaramada midoobay waxaan sidoo kale eegi doonaa ururka midowga Afrika maxay ahayd waxyaabihii laga wada hadlay dowladda Soomaaliya iyagu samaxay wadeen oo ajanda ah arrimahaasi kuwa kale waxaa marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo aan uga mahadcelinayno macali wasiir soo dhaw barnaamijka wada shaqada dalsan TV farxad bay noo tahay inaad la joogto aad u mahadsantahay way farxad bay noo tahay waa kaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga intaasi kadib barnaamijka wada shanaad waxaan diiradda ku saari doonaa inta waqtiga inoo saamaxa arrimahan ka hadalnay magaalada Muqdisho waxay mid wafdi ka socda dowladda Afrika oo erga kamid ah ay joogeen Soomaaliya shirkaasi Muqdisho lagu qabtay bal faahfaahin maxaad inala wadaagi kartaa ujeedada shirkaas aad u mahadsantahay aan ka baxsho maaragtay sharaxaad yar dadka yimid magaalada Muqdisho waxaa yimid golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika oo ka kooban 15 dal 15 kaas dal waa wareeg waa doorasho la isku soo lagu soo galaa sanadkan qolada 15 kaas dal kamid ah ayaa noogu yimid ayaga oo horay u yimid Soomaaliya meelo kale oo African Unionka ama midowga Afrika ay ka joogaan ciidamada nabad ilaalinta African Unionkana hore u tagay ayaa waxay rabeen inay halkan noogu yimaadaan ayagoo daba socday qiimeyn iyo wada shaqeyn dhinac farsamo ah oo hadda ka hor laga sameeyay arrimaha ku saabsan joogitaanka iyo waxa uu noqon doono mustaqbalka ciidamada Afrika ka jooga halkan way warbaahinta qaar waxay qoreen warar kuwa ka duwan مثلا golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika imaanshiyahooda galabnimada isniinta caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya waxaa lagu yiri waxay imaanaysaa waqti dowladda Soomaaliya ay ceerisay ku xigeenkii howlgalka midowga Afrika Soomaaliya dhigka la yiraahdo Samuel Mulungo waxay u yimaadeen ujeedka wuxuu ahaa in arrintaas ay kala hadlaan dowladda Soomaaliya ma jirto arrintaas marka ay dhacday iyo imaatinkooda wax laba wax isku xiran ma aha waxay u yimaadeen ma aha wax laga wada hadlayna ma aha way Simon Mulongo marad warbaahinta la hadashay ayrintiisa waxaad ku tilmaamtay inay ahayd hab dhaqan ka baxsan waxyaabihii loo egmaday iyo inuu isku dayay carqaladaynta baaritaano lagu sameeyay dilka 7 qofood oo rayid ah oo ku geeriyooday gacanta howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo ka dhacay koonfurta dalka maxaad faahfaahin ah oo intaas ku dareysaa maadaama aan fursad ku helnay barnaamijka wada shaqada isagu ma ahayn cid ka dambeysay dalka laakiin maadaama uu madax ka yahay AMISOM kaalinta kaga aadan baaritaanka iyo celintiisa ama qarintiisa ama soo saaridiisa ama la wadaagidiisa meelaha ay ku haboon tahay arrimahaas la xiriira darteed ayay ka mid ahayd waxyaabaha lagu haystay arrimo kale oo dhowr ahna waa jiraan waxaase cajaa'ib ah in xataa shacbiga dad odayaal ah shacbi caadi ah aanu ka helay warbixino anigu laftirkayga hore u sii ogeyn oo ka hadlaya arrimo kale oo maaragtay noocaas oo dhacay runtii anagu diblomaasiyad ahaan ka dowlad ahaan qof ku jooga heshiis noocaas oo kale ah diblomaasi ah haddii aan cidii soo dirtay aysan ka xayuubinayn xasaanada kama hadli karno in aan u galno si faaqidaad leh maaragtay waxyaalaha lagu haysto oo dhan way mar haddii howlgalka midowga Afrika ka dambeeyay dilka dadkaasi lahaa sababta maxay tahay sababta u leedahay isaga kama dambeeyno bariyo ahaayo midowga Afrika lahaa maadaama howlgalka midowga Afrika madax ka ahaa may doorkiisa wuxuu noqon karaa
horta arrintaas waxaa laga sameeyaa waxa la yidhaahdo investigation board of investigation markii ay dhacaan dil noocaas oo kale ah waa in baaritaan laga sameeyo baaritaankaas la sameeyo ayaa waxaa lagu soo saarayaa qofkii ka dambeeyey shaqsigii ka dambeeyey askarigii ka dambeeyey sidee ma aragtay ma raacay habkii loogu talagalay qofka maasikama uu ku dhintay wax allaala wixii siduu u dhacday arrintaas qofkaasay ku xirantay kama hadlaayo dhacdadaas keliya sideedaba markii askari uu wax dilo ama xataa hadduu yahay askari soomaali haddii xabad ka dhacdo mataliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la leeyahay maxay ahayd lugtaad ku lahayd doorka ninkan aad ardayseen dowladda soomaaliya muxuu noqonayaa marka laga soo tago investigationka baaritaanka ninkan waa ku-xigeenka maaragtay midowga africa u fadhiya halkan sababta loo raacdeeyey maxay ahayd si kooban maxaa loo erdeeyey waxaan kuu sheegayaa sababta loo ceyriyey inay tahay in uu maaragtaa u dhaqmay qaab aan ka mid ahayn heshiiska Soomaaliya iyo Amisom ku wada jiraan oo la yiraahdo status of mission status agreement waxay leedahay conduct qofka conductiga marka heshiiskaas marka la fiiriyo waxaa soo baxay waxyaalo aan qofka jagadiisa kala haya ama diblomaasi ah uusan ku dhaqmi karin tusaale maxaa ka mid ahaa kuma siinayo tusaale inta ku siiya kugu daawadahayga wuxuu doonayaa macluumaad la xiriira sababta dowladda federaalka Soomaaliya oo wasiirka arrimaha dibadda uga tahay Simon Molongo ay ardaysa Soomaaliya in uu report sii daayay in report kale uu qariyay in maaragtaa waxyaabo uusan asagu shaqo ku lahayn ka qayb qaatay waxaasoo dhan waa si guudaan u sheegi karnaa laakiin diblomaasiyaddu kuma jirto in aan iraahdo ninkaas tallaabadaas u qaaday waxyaalaha qaarkood aan ka hadlayno waa falal dambiyo u baahan baaris run ah ya runtiina ma ahan keliya in telefishinka daawadayaashaada ay xiiseeyaan aniga adigoo murmayno muran ma aha oo macluumaad bay raadinayaan qofka muwaadinka ahana uu xaq u leeyahay inuu helo macluumaadka dowladda ay hayso inaa aniga adiga telefishinka ku hormarino dadka inay xiiso u samayso waa laga yaabaa laakiin waxaa muhiim ah in daawadahaagu uu ogaado sida dhabta ah ee wax u jiraan iyo mas-uuliyadda runta ah oo naga saaran haddii wax walba laga dhigo marka in maaragtay wax muran waanu ogaa intaan waa goyn doontaa dooqa waxaan ka ballan qaadayaa daawadahaygan u ballan qaadayaa intaan inaan jiri doonin waxaan ballan qaadaa in su'aal kastoo ay weydiisid aan uga jawaabi doono sida runta ah anigoo ilaalinaya xuduudaha ay leedahay diblomaasiyadda oo iyo mas-uuliyadda aniga saaran ka wasiir ahaan anigoo ilaalinaya in inta ku habboon in aan si public ah aniga ballan qaadayaa sida xeerka saxaafadda dhaqanka iyo ilaalinta danaha qaranka Soomaaliya ee saxaafadda ku beesgaraysan wax ku weydiiyo macluumaadna aan ka siiyo wasaaradda arrimaha dibadda adigoo wasiirka ka tahay eedeymaha waxay leeyihiin maraaxil kala duwan kuwa ogolaanaya sida aad sheegtay aanan ogolaanin in laga hadlo warbaahinta la wadaago kuwana waa kuwo suurtagal ay tahay daawadahan macluumaad ka siin karno waxaad ina leedahay aniga iyo daawadayaasheeda tan iyo 2017 ayuu ninkan dambiye galay haddana lama wadaagaysa nasiib darro hal iyo laba ka mid ah dambiyadaas ninkan waxa uu ku tuntay Soomaaliya uga tuntay wax nooga sheeg dadka dhan waa ogyihiin adigana qof Soomaaliya tawaana ogtahay waa maxay inoo sheeg adiga intaad ogtahay wax kale ma waxaan ogahay iyo waxa ogtahay daawadayaashan wada sheegay noogu celi hadda tan aad sheegtay sida aad u sheegtay oo 7 qof oo la dilay sidoo kale waa jiraan arrimo kale oo dhacay oo aad la socoto aan dhahno aan u sheegto badanna waxaa yaab leh dadka Soomaaliyeed oo dhan inaysan ka hadlin ninkan muxuu sameeyay cidii ka hadashayna waxay ka hadashay qaabka lagu eriyay adiga waxaad interested ku tahay ood ka dhigaysaa ninkii inuusan dambi lahayn
ama wax la siyaasadaynayo ay ku jirta meesha. mudan soo dhow waxaan rabnaa waa macluumaad waaye Waa waxaan raadinayaa aniga waa macluumaad macluumaad daawadahaygaana ka tarjumayaa ninkaas dowladda Soomaaliya ay ceerisay midowga Afrika ku xigeen kuwa ah waxa uu dhibay dalkan tan iyo 2017 inaad dul marto marka laga soo tago in la wadaag saddex arinood leedahay qarnimada Soomaaliya ku tun saasaan ordeen waxaan u wanaagsaneen qarannimada Soomaaliya aan u wanaagsaneen sharafta dadka Soomaaliyeed waxaan u wanaagsaneen sharafta dadka shaqaalaha ah oo u shaqeeya AMISOM laftarkeeda waxaan u wanaagsaneen dadka dariska la ah AMISOM dhexdeeda waxaan u wanaagsaneen sumcadda iyo karaamada dadkeena ayuu ninkaas ku dhaqmay waa jirtaa waxyaalo kale oo waaweyneen oo sidaas oo kale uu ku dhaqmay laakiin taas hadda dabagalkeeda midna ma jiro waxa aan ku leeyahay waa soo socotay intaas waxaanan u maray jidka loogu talagalay tallaabo kasta madaxdiisaan u sheegay madaxdiisa maaragtay xarunta African Unionkan ka dacweeyey 2 jeer waxaan ku dacweeyey madaxda ugu sareyso African Unionka waxaan mar kale ku dabagalay isla ayagii intaas oo jeer ayaan waxa u soo maray dacwadda noocaas kadib markii wax laga qaban waayay waa meesha ugu dambaysa in qof la yiraahdo waa erinay marka koowaad waa la dareensiyaa marka toosaa loogu sheegaa Soomaalidu waxay tiraahdaa doqon usha marka hore agteeda lagu dhuftaa day garan weydo markaas lagu dhuftaa dhowr jeer aan agteeda ku dhufanay waa garan waayeen markii dambana de si toosaan u niraha nooga baxo wayahay waxaan sharafta Soomaaliyeed u wanaagsaneyn qarannimada u wanaagsaneyn bini'aadanimada u wanaagsaneyn siyaasadda lagama yaabo ayuu ku dhaqmay ninkaas soo sidaa maaha fiiri lagama yaabo in si kastoo ii weydiiyo su'aasha aan ku noqdo inaan ku daro inta aan ku sheegay wax ku xiga marka su'aasha ku xiga way isla tan waxaan rabaa in uga gudubno jawaabta waad bixi kartaa waadna diidi kartaa waadna ka gaabsan kartaa waa rights xuquuq aad leedahay eedeymaha loo jeediyey Simon waxaa ka mid ah inuu gabdho Soomaali oo AMISOM xiradooda ka dhex shaqeeya tacadiyo loo geystay uu hor istaagay ma jirtaa marka waxaan ku weydiiyey maxay ku dhacday adigoo waxyaalo badan xansanaya ama meelo kale sources ka raadinaya in waqtigan qaaliga ah uu nooga dhumo inaa aniga aan detail u galo ama ku dhawaaqo gabar Soomaaliyeed oo tacadi loo geystay xogteeda in la helaa maxaa ka muhiimsan maya adiga laba mid iskuma heli kartid marka koowaad inaadan waxba ka ogeyn oo iga dhigta aniga qof wax qarinaya ma qofkii la rabay inuu macluumaad ka bixiyo aniga fiiri waxaa noo fiican in su'aalaha ay weydiinayso ay runtii dadkaaga daawadayaashaad wax ku ogaadaan way maxay tahay sababta loogu guuleysan la yahay in ciidamada Soomaaliya isku filnaadaan oo ay kala wareegaan AMISOM howlgalka والله سبب ما aragtay aniga sida aan qabo maxamed ahaan ciidamada Soomaaliya waa isku filan yihiin la wareegi karaan caawa amniga Soomaaliya oo ma leedahay AMISOM way fasaxan yihiin Soomaaliya ilaaheeda leedahay ciidamadeeda leedahay inay isku filnaataa u fiican diyaaran u nahay laakiin waxa aan ka wada hadlayno waxa weeye adduun iskaashanaya ka wada tirsan qaramo midoobay ka wada tirsan African Union ka wada wadamo wada daris ah soo ma garan in arrintan ay ku timaado tartiib iyo hagaajin iyo iyadoo cid walbaba ajandihii iyo qorshihii ay lahayd ay si nabad ah ku gaarto taas waa waxaan raadinayn Mareykanka adduunka marka uu dagaal galaya xataa wuxuu u wacdaa intaas oo wadan runtii hadda waxba aan ku kordhinayn laakiin cudud siyaasadeed siinaya qaarkood cudud military ay ku soo darayaan annaga maanta haddii ay nagu tagto nagu khasabto waana ogyihiin meesha aan ka istaagnay Soomaali diyaar waxay u tahay in iyadu
amnigeeda sugato meesha ay ku dambayn doontana waa isla meeshaas. waa ka dhexgalay iga raali noqo aad baan ugu farxay daawadahan ugu farxay saan rajaynayo Soomaaliya way isku filan tahay ilaahana caawinaya ma leedahay Soomaaliya way isku filan tahay now oo aan barnaamijka ugu dashanaad la hadlaayo amisom waa ka kaaftoonaa fiiri aniga shakhsi ahaan aan ku iri marka magaca dawladdu ku hadlaayo gooni way laakiin shakhsiyan anigu magaaladan waxaan joogay 14 sano ka hor markii ay yimaadeen 2,000 oo ciidan oo Ugandese maanta meeshaas aan maraynay iyo maanta labay kala tahay waqtigaas Soomaali dhexdeeda is dagaalaysa ciidamada Amisomna ujeedada ay u joogeen mandate-kaas ugu horeeyay wuxuu ahaa dawladda inay ilaaliyaan markaad leedahay maanta waa ka duwan tahay maanta waxaa jira meelo fariisimo ah oo ciidamada Amisom ay fadhiyaan fariisimadaas waa meelo ay difaacaan meelo ay weerarka qaadaan ma aha ciidanka Soomaaliya waa kan weerarka qaada kan cadowga dabagala ma ahan Amisom meelo aad u kooban bay dagaalada ka galaan maanta waxa aan raadinayno oo isku hayno oo aan rabay daawadayaashaada inay ogaadaan waxa weeye waxa aan rabno waxaan rabnaa ciidan la dhaqaaqi kara ciidamada Soomaaliyeed marka ay dhaqaaqayaan oo socon kara oo cadowga meel kasta ka saari kara ma ahan ciidan inta meel fariista asaga iswaardiyeeyo cidna ma rabto adduunkana waa u sheegnay African Unionkana waa u sheegnay Soomaalidana waa ogtay ciidamadeena inaa wareysatida fiican waxaan codsanayaa way qurux badan tahay sheekada laakiin waxaad falsafadaysay su'aasha aan ku weydiiyay waxaan ku iri ka bixista ciidamada Amisom Soomaaliya caawa ma leedahay maadaama aad tiri Soomaaliya isku filan tahay Amisom waa ka maarana su'aashaas waa kaaga jawaabta kala aan u gudubno way aad ma santahay gobolka waxa ka dhacay dagaalo regionka waliba Tigray waxaan ogahay in dawladda Soomaaliya cilaaqaad ay la leedahay dawladaha dariska waliba mid saaxiibtinimo aad u wanaagsan xuduud ay wadaagaan waa maxay aragtidaada ku aadan dagaalka ka soconaya Tigray ee ka dhanka ah TPL hore waxaan u iri haddana leeyahay gobolkan geeska Afrika oo aan degannahay mar allaala iyo markii ay ka dhacdo wax dhibaato ah oo ama ha ahaato waxay bini aadan ka dambeeyaan ama dabiici u dhaca waxaa khasaaro ugu jiraa gobolka geeska Afrikada oo dhan maanta Ethiopia dhibaato ka taagan dhibaatada ka taagan dalkaas dariska nala annaga waxay nagu saameyn bay nagu yeelan kartaa saameynta ay nagu yeelan karto darteed iyo dhinac bini aadanimo annagoo ka fiirinayna iyo annagoo ka fiirinayna Soomaalida ballaaran gobol dhan ka degan dalkaas waxaan rajaynaynaa Ethiopia in dhibaatada ka jirta aysan sii soconin nabad ku soo dhamaato wada hadal ku dhamaato wadamada dariska la'ana aysan khasaaro u geysan arrinta Ethiopia intaasaan ka leeyahay waa mahadsantay waayahay waxaa jiray hooyooyin Soomaaliyeed dhowr mar cabasho ka dhigay magaalada Muqdisho ku eedeynaya dawladda in caruurtooda inta la qaaday tababar askar la geeyey marka hore loo sheegay in qadar la geenayo Eritrea la geeyey kadib la sheegay in TPLF iyo Tigray ay ka dagaalameen arrimahaasi maxaad ugu jawaabaysaa wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda haddaan nahay arrintaas wax aan ka ognahay oo ka jira ma jiraan haddii ay jiraan waxay ku habboon tahay in su'aalahaas aad ku aadiso dadka maamula ciidamada yaqaana meesha tababarkooda ka dhacay yaqaana meesha ay ka howlgaleen yaqaana inay soo noqdeen inay joogaan dalka inaysan joogin taas aniga shaqo ii taala ma aha arrimaha dibaddaan ka shaqeeyaa taas waxay ku habboon tahay wasaaradda farac kale waxay yeelan kartaa marka amniga laga soo tago waa sax dhankaasi aadi doontaa dhanka siyaasadda marka laga eego arrintaasi Eritrea Ethiopia Qatar markaad ka eegta siyaasiyan macluumaadkaasi
maxaa idinka soo gaaray wasaaradda arrimaha dibadda wax naga soo gaaray oo faylkaas annaga ma hayno kamana shaqaynayno tababarka ciidamada arrin maaragtay annaga noo taalama waxaa ogaataa wasaaradda arrimaha dibadda safaaradaheeda waxaa jooga u qaybsanaha arrimaha militariga u qaybsanayaasha arrimaha militariga waxay la shaqeeyaan ama ka tirsan yihiin wasaaradda gaashaandhig wax allaale wixii ku saabsan arrimaha ciidamada waxaa u qaabilsan halkaas laakiin arrin ay ka shaqeeyaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ilaa iyo wasiirka ma aha arrin ku saabsan dowladdan hadda waqtigu uu ka dhamaaday ee wasiirka arrimaha dibadda ka tahay ee gaarsiinta gaab ka bixinta Soomaaliya go'aanada Soomaaliya u gaaraysa waxay qaadatay go'aano waaweyn oo hadda ergigan baa la raacday mid kale waxaa ka horeeyay qaramada midoobay aragtiyadaasi go'aanadaasi dad ayaa ku tilmaamay qariska tuurnimo oo cawaaqib xumo ay dhaxli karto maxaad uga jawaabaysaa dad ayaa ku tilmaamay wax laga soo qaado ma aha dadku ku tilmaamay sheeg markaasaa cabiri karnaa dadkaas oon ka jawaabi karnaa su-aasha noocaas kow tan labaad dowladda aan ka tirsanahay waxa ay soo martay wakti aada looga dooday sharciyan jiritaankeeda iyo inuusan jiritaan la-aan ay tahay Soomaaliya inta ay jirto mar walba dowlad ay leedahay ama ha ahaato mid haysata mandate cusub ama ha ahaato mid ku jirta waqtigii doorashada inta la dhaafay kadib ah laakiin mar walbaba wadankan ilaalintiisa mas-uuliyada waxay ka saaran tahay dowladda markaas jirta dowladda markaan jirtana ama tiraahdo waqtigaa ka dhamaaday ama iyo ka dhamaanin siyaasiyiin aniga taas ima jiidanayso laakiin waxaa mas-uuliyad naga saaranta in aan go-aan u qaadano wixii lagu ilaalin karo ku ilaaliyo waxaan kuu sheegay mucaaradka xataa inay yiraahdeen go-aankaas waxaan uga dambaynaynaa dowladda marka mucaaradka aad kaga hadlayso inay soo dhaweeyeen go-aanada wasaaradda arrimaha dibadda ama Soomaaliya Soomaali kastaan ka hadlaya Soomaali walba kale tan ah go-aankii Haysam lagu ceeriyay isla ayaga ku tilmaamay inaan laga fiirsano lagu degdegay Soomaaliya loogu abuurayo cilaaqadan wanaagsaneyn arrimahan waxa loo baahan yahay case kastaba goonidiisa in loo fiiriyo case-ka aad hadda ka hadlayso sida aan kuu sheegay waxaan u maray muddo 6 bilood ah in aan marsiiyo marxaladaha kala duwan ee diblomaasi dareensiin ilaa iyo dacwasho toos ilaade marka taas waxay la tahay inay arrin ay tahay mas-uuliyad ay ku jirtay aan ku dhowrayno qarannimada iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed go-aankii Soomaaliya ay qaadatay waxay qaadatay go-aan lagu dhaxdhaxaad u tahay dadku hayay khaliij haddana waxaa qadar dowladda Soomaaliya la xijiyay oo dhaxdhaxaadnimadaasi 100% aysan ahayn maxay ku dooratay Soomaaliya xiriirka qadar su'aal fiican waay laakiin su'aal waxay la tahay inay daahday ama aan ku aadanayn qofkii wasiirku ahaa ama madaxdii markaas u joogtay marka su'aashaas aniga hadda kama jawaabi karo go'aankaas la qaatay iyo dadkii qaatay iyo taas waxay fiican tahay inaad ayaga aad wax weydiisay iyo wixii ka ogaayeen gobolka ama qaaradda Afrika waxaa isbedelaya loona ku jira qaarad faqaakinhan ah shucuubtooda kama faa'iideysan laba qudbi laba dhinac jirtay oo Soviyetkii iyo bariga dowladihii galbeedka hogaaminayeen waqtigu isbedelay Soviyetka way baxeen dagaalkii qaboobaa iyo waxbay ku baxeen hadda China iyo Mareykanka ayaa loolanka ugu xoogan Afrika ku jira siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya anagu 1960kii بريجي عن قاعدنا حرية ضاء صناديه كدم بيكو إلا بيصدع إن سياسة رمها دبدا عبد الرزاق يقاتل حكومة هي سياسة عن بنتشرين
ama xiyaadiya dhexdhexaadnimo ah hadda intay bay jirtaa Soomaaliya siyaasadda dibadda markaad leeyahay أنا لنا أجنجرة فيري سد الرماد بدو سالية وحنكودنا سياسة ده ودن ربع إنه يسكو استعجو معلومها قاركود وحيدنا وجرتا أما إن الله عدينه أما أن نسفهم كي لأنه قدام هذا مريكن كأكله يرجع قلبتك معلن وحيدنا وجرتا إن waxay ku xiran tahay marba issue-ga ama case-ka laga hadlayo tan kale siyaasaddeena runtii waqtigii aan burburkeen marxalado kala duwanay ka dhaxgalo macluumaad inaan ku daro waxay okay way soo wax tiri hadba waxay ku xiran tahay mowduuca laga hadlayo isla aragtidaasi taariikhda dadka qaar badan oo akhriyay oo aan ka mid ahay waxa leeyahay itijaaha siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya weligeedba ma cadeen oo sida hadda u qeexiso ah hadba maalintii muufadeena meesha ay taalo ayaan jirnaa miisan dhibaato ku ahayn siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya ما fiiri danta Soomaaliya meesha ay ku jirto inaan u soconno ayaa muhiim ah waxaa jirtay okaadi markaa ka hadlaysid lixdameeyadii iyo toddobaatameeyadii Soomaaliya siyaasaddeeda arrimaha dibadda iyo siday ahayd iyo maanta siday tahay waa laba wax oo aad u kala duwan waay siday ahayd waqtigii aan ku soo jirnay dowladdii soo kabashada ahayd ku meel gaarnimada maalinba meesha aan soo maraynay ayadana sibay ahayd macnaha pressureka kugu imaanaya iyo kala jiidashada iyo wax oo dhan maanta meel waxaan maraynaa aan wax yar istaagnay oo aan oran karno u kaadiye tan dan nooguma jirto maanta tan dan noogu jirtaa may tan dan nooguma jirto sidaanaan u soconaynaa kolleyba sida aan hadda runtii wax ku wadno waxbaa noogu badisaa ma aragti ma ahan mid Soomaaliya dhibaato u keenayso siyaasad sideedaba ma ahan mid meel kaliya joogta mar walba mid isbedelaysa waa isla bedelaysa danta adiga aad leedahay Mareykanka iyo Shiinaha marka laga soo tago danayna Soomaalida siyaasad ahaan halkay baan jirnaa fiiri danaheena siyaasadda gobolka siyaasaddiisa aragtiyaan kaleen marba meesha ay siyaasaddaas ku aadeen adduunka siyaasad waxaan ka leenahay dan marba meesha ay maaragtay iyo topic taagan waxaan ka leenahay aragti taasaan ku soconnaa marka Mareykanka dhankiisaan jirnaa saas miyaa anaga cid walbaan saaxiib lanahay anagoo Mareykan saaxiib laa Shiinan saaxiib lanahay dhib kuma qabno taas marka ma cadda siyaasadda arrimaha dibadda quwadaha Mareykanka iyo Shiinaha cid walbaan saaxiib la ahaan karnaa cidaa meel ugu xirnaanayso ma jirto iyo xulafaysiga kala dhaxeeya alliance markii la yiraahdo ilaan xulafa la'aan lama noolaan karo siyaasadda iyo jiritaanka waxaa jirtay Soomaaliya inay ka mid ahayd waxa la yiraahdo not allied movement dowladaha aan lana jirin dhinacna jirin waa ka mid ahaan jira maanta arrintaas dibay isu soo taraysaa adduunka dhan siyaasaddiisii ayaa wax iska bedeshay arrintaas dib isu soo taraysaa meeshaas ku haya haye waxa wadamada qaarkood hadda shiraa ka dhacay Serbia Soomaa laakiin non allied movement waxay aad qiimo weyn u lahayd markii adduunka uu ka jiray dagaalkii qaboobaa markii adduunka uu ka jiray awoodihii reer galbeedka iyo kuwii reer bariga oo isku haystay iyo alliance-gaas ayay wadamadan si uga badbaadaan labadan quwadood waxay soo saareen wadamada dhexdhexaadka aan la jirin maanta quwadihii NATO iyo Warsaw oo kale ma jiraan maanta adduunka wuxuu u badan yahay quwado isku haya arrimo dhaqaale oo loogu jiro loolan iyo tartan dhaqaale
marka maadaama ay taas ka khatar yar tahay inaad dhinacan la jirto ama dhinacan la jirto oo la fahmi karo inaad rabto inaad noolaato, inaad xiriir la lahaato cid walba, inaad way ka sahlan tahay waktigaas wadamada qaarkood xarajka ay ku jiraan. waayahay gabagabadii barnaamijkeenna ayaan isla maraynaa. waxaa tahay murashax xildhibaan ma jirtaa? sax waa tahay. waa kursiga halkuu yaallaa? kursigaaga halkee buu yaallaa? waxaa lagu dooran doonaa Garowe. iyaa kula tartamaysaa? macadda. waa sidee xiriirka kala dhexeeya madaxweynaha Puntland Siciid Dani maadaama kursigaaga uu yaallo deegaanka Puntland? fiican weeye oo ka dhexayn kara Puntland madaxweynaheeda, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Puntland madaxweynaheeda iyo macnaha wada shaqayntii naga soo dhexaysay. marka ma wax tartan oo aniga isaga naga dhexeeyo ma jiraan. waayahay guri waxaa ka soo baxday dowladnimada aad ugu adkayd, aabbahaabaa wasiir ahaa, 30 sano kadib adna inaad wasiir noqoto mudane maxay kaaga dhigan tahay? waxay la tahay waktiga ay dowladnimada Soomaaliya soo martay iyo maraaxilka aabbahay iyo asxaabtiisii ay ku soo shaqeeyeen iyo maanta dowladnimada Soomaaliya iyo maraaxilka aan ku shaqeynayno laba aad u kala duwan oo runtii isbarbardhigeeda ay aad u adag tahay. anigu waxaan u arkaa aabbahay inuu wax weyn ummadda Soomaaliyeed u soo qabtay. ilaahay ha ka siiyo ajir iyo xasanaad. meel aan isla barbar dhigi karo ugama jeedo, laakiin waktigaygaan joogaa, jiilkaygaan la joogaa. taasna waxaan aaminsanahay inaan si daacada ugu shaqeeyo, in si hormarinaysa danta shakhsigaa ka hormarinaysa danta guud ugu shaqeeyo qarannimada. waayahay wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeynaysaa, wasiirkii baa tahay. maxaa jinsiyad kale ah oo ajnabi ah oo aad haysataa oon Soomaali ahayn? jinsiyadda Soomaalinimada sida la isku siiyo arrin waxaa weeye weli dhiman dastuurkeenna iyo sharci ahaan aan weli la dhamaystirin haddaa la socotid iyo haddii kale. sida su-aashaada leh haddaan usoo noqdo, taas weli waxay u baahan tahay shaqo in laga qabto. su-aashaada nuxurkeeda haddaan usoo noqdo, waxaan la mid ahay kumanaan haddaysan gaareen 100,000 ama ka badan Soomaali ah oo dagaalkii sokeeye marka uu dhacay maaragtay wadanka dibaddiisa aaday ama hore ugu maqnaa, ku qasbanaaday inay dalal ajnabi ah ku noolaadaan, ku qasbanaaday si ay u helaan maaragtay xuquuq safar iyo wixii la mid ah inay qaataan jinsiyado kale. kuwaasaan la mid ahay, waan qaatay, waana haystaa xuquuq iyo maaragtay baasboor waan haystaa. marka taas waa taas. wadankee ayaad haysataa baasboorkiisa? Maraykan. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya jinsiyadiisa labaad waa Maraykan. xuquuq ku hela, lagu canshuuro sida muwaadinka Maraykanka. wax taas been in laga sheego looma baahan. marka miiska wada fadhiisataan Joe Biden mas'uuliyiin ka socda ama wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, adigoo muwaadin Maraykan ah lagana hadlayo qadiyad Soomaaliyeed ee labada isla ekaadaan, qadiyadee ayaad jirtaa oo aad difaacaysaa? su-aal meeshaba ku jirta ma aha. mar walba Soomaaliya nahay, saan ugu dagaalamo Soomaalidoo dhan waa og tahay. in maaragtaa aad baan uga xumahay su-aasha aad maaragtay meesha aad gaarsiisay runtii ma leh quality. marka aragtidaada lagu cabiro
ما يدري قف كابس شوي دين إنسان هاي موقت ده سوي إنسان ولا هاي كوارته ما أهان سؤال معنوين هاد dadku u soo kordhinaysa oo baxaway Soomaalinimada sidaan ugu soo shaqeeyay iyo maalgelinta aan ku samaystay Soomaalinimada yaa ilaa iyo abka ab wax cad oo la yaqaan oo taariikh ma duray abka ab ma yadaba taas qoontaadii way duniyadaada waxaan rabaa okaadi aan waxa la yiri waxa sheeganayso waa inay meel ku tiirsan tahay moogta cadeen u haysataa ya taasaan u haystaa Soomaalinimo aan ku shaqeeyaa marka aan meel soo fariistana maalin walba way caddahay meesha aan ka taaganahay waliba ixtiraam aan ku helaa way muwaadinka Mareykanka ka noqonaya wuxuu maraa shuruuc ballamo dhaar calan dad iyo wuxuu ku dhaartaa dal inuu daafacayo amaanaas Mareykanka ma ka qaaday 3 milyan oo Soomaali ah amaanaas ma ka qaaday Mareykanka intaas oo milyan oo Soomaali ah ayaa wadamo kala duwan ku soo noolaa u qaxay wali maanta carruurteena badaha u marayaan waxa uu soo noqday oo 21 sano aan u shaqeynayaa Soomaaliya uga shaqeynaa inaan hagaajiyo wax ka bedelo si ayna dadkeena ugu khasbanaan dhalinyaradana ugu khasbanaan inay balaha isku tuuraan waxaan wali u doodaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo jidka intay sii socdaan meelo dhex magafa ku helay oo xabsiyo ku jira wajib ku saaran mudane okaada isku ma heli kartid laba isku ma heli kartid adiga inay dhahad dhinacan waa waajib ku saaran wadanka oo shaqeynaysa dhinacan igu eedeysid inaan ma aragtay an jinsiyad kale aad ma aha aan ma aragtay ma yidsaa hadalku u dhigaysid saa hadalku u dhigaysidaa waxay tahay moogtahay hadalka waxaad siinaysaa dhadhanka ah hadalka siinaysid ayaa wuxuu igu eedeynayaa in haddii aan arko dan Mareykan iyo dan Soomaaliyeed aantan Mareykanka difaacayo ma is waafajinaysaa si fudud simple hay Mareykanka ma ugu dhaaratay dal ahaan calan ahaan soo balan kama aadan qadin difaaca Mareykanka ninka Joe Biden iyo adiga caawisku xuquuq iyo waajibad inama saarna waan saaran tahay waa isaga waa madaxweyne qof macnaha qof waxaad ka hadlaysaa shacbi hoos of course ha xuquuqu leeyahay liiguma xadgudubka xataa ajnabi haddaad tahay ogow by the way xataa qof ajnabi haddaad tahay oo Mareykanka joogta xuquuq leh hal su'aal oo ugu gudbaynaa sidee hal qof laba dal oo isku dan aan noqon karin Mareykanka iyo Soomaaliya aad daacad ugu noqon kartaa fiiri waxaan daacad u ahay xilka aan hayo waxaan daacad u ahay Soomaalinimadayda waxaan daacad u ahay meesha aan ka soo jeedo umana jeedo wax khilaafa iyo wax iska hormaada oo arintaas waxa daacad u tahay calanka Mareykanka ciidanka Mareykanka White House-ka maadaama jinsiyadiisa ay wadato soo saamaha dhanka kale fiiri ma yukaadi aniga waxaan daacad u ahay Soomaaliya way sheegtay calanka dabayaal wajida taasan daacad u ahay hay kan kale aad wadato baasaboorkiisa kan kale aan baasaboorkiisa wato ma yukaadi fiiri war dadka adiga oo sida adiga dadkeena oo dhan dhibaatada soo maray meelaha ay soo mareen maanta ku haysta nolol intooda badan taageero walaalahood Soomaaliya jooga waxaas oo dhan aad u fiican tahay in la istaakulayo war dadkaasu ma aragtay matali karaan dalkooda hooyo oo ay ka soo jeedaan oo u dhasheen oo weligood ay ka maqneen macaadala anigoo 21 sano 22 sano mudan wasiir laakiin qof caadi ma ahayd wasiirkii arrimaha dibadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee madaxa bannaan ayaa tahay hooyada Soomaalida qaxday ee 20 dollar eerta soo diraysa ma ahayd seeba daacad ugu noqonay laba calan oo midna Mareykan ah midna Soomaaliya soo shaqayntaas calankan daacadan wax xilkan hay daacadan wax dhaartan u maray
waa iga dhab waa kaa maraykanka dhaarta iyo calanka iyo dhacdumatiida maya fiiri adiga tan aniga aan hayo oo aan ka shaqeynaa maalinta liigu arkaayo shaqada aan ku hayo maalin walba liigu qiimeynayo tan waayo tan muhiimka aad u mahadsan tahay waa hore aan soconayna gabagabadii barnaamijkeennan maiga oggolaanaysaa su-aal shakhsi ah inaan ku weydiiyo maya waqtigaa kaa dhamaaday daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii awoodda shanaad dalsan t v waxaa marti ku ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cumar nuga mahad celinayno waqtiga barnaamijkan awoodda shanaad oo nagula qaatay idina aad baad ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijkan macali wasiir aad u mahadsantahay shukran thank you